waxaa jira sanadkani ee 2023 in laga cafiyay dawladda Soomaaliya $5 bilyan taasoo lagu qaatay in lagu dhiso kaabayaasha dhaqaale. Haddaba halahan badan ayaa ka dhalatay in lagu dhahay muwaadin walba oo Soomaaliya waxaa lagu lahay $300 taasoo hadalhayn badan ka dhalay social media. Haddaba waxaan isla eegi doonaa sideen lagu yeeshtay muwaadin walba oo Soomaaliya in lagu yeeshto $300. Haddaba waxa uu soo qaadan doonaa qodobo gaaraya 5 qodob oo qofka muwaadinka lagu yeeshtay lacagtaas gaaraya $300 in laga cafiyo $5 bilyan. Haddaba qof walba muwaadin waxaa ku soo aaday lihaashada ama yeelashada lacag gaaraysa $300. Haddaba lacagta laga cafiyay Soomaaliya waxaa lagu talagalay in lagu dhiso kaabayaasha dhaqaale iyo midda dawladeed iyo midda caafimadeedba. Haddaba waxaa kamid ah qodobka koowaad ee soo qaadan doono hirgelinta adeegyada dhaqaalaha. Lacagta laga cafiyay Soomaaliya waxaa lagu talagalay in lagu dhiso horumaritaanka adeegyada dhaqaalaha sida waxbarashada, adeegyada caafimaadka iyo wixii la halmaalaba. Haddaba dawladda Maxamed Siyaad Barre ayaa qaadatay lacag badan iyadoo ka dhiisatay wadamo badan ay kaliya Carabta, Faransiiska, Ruushka iyo Mareykanka taasoo qaadatay inay ku dhisto dhaqaalaha dalka iyo kaabayaasha dhaqaalaha taasoo ay ku dhistay dawladii hore Soomaaliya laamiyadan aad ku weyn iyo eelaboradan sida dekada Muqdisho, dekada Berbero, dekada Boosaaso, midda Jubbaland intaba way ku dhistay. Haddaba taasoo ka dhigan tahay inay ku dhisayso dhaqaalaheeda ayadoo midda muwaadinka ee cashuurta laga qaado iyo midda dalka isku kordhinayso. Haddaba waxaa lagu dhisayay sida hirgelitaanka adeegyada dhaqaale, kormeerka dhaqaalaha taasoo ka dhigay in caafimaadka iyo isbedelada oo teknoolajiyada la sameeyo. Haddaba wuxuu Maxamed Siyaad Barre hirgeliyay dawladda Soomaaliya waxay hirgelin ama dawladaha adduunka iyadoo hirgelin in la sameeyo dugsiyaal waxbarasho free ah, caafimaad free ah. Intaasba waxaa hirgelisay dawladii hore ee Maxamed Siyaad Barre. Waxaa lagu dhisay kaabayaasha dhaqaale taasoo ka dhigan in maanta Soomaaliya markaasna lahayd gacmo kooda istaagsan iyo hubada tiro badan. Haddaba waxaa lagu dhisay dhismaha dhaqaale taasoo ahayd bangiyada iyo xawaaladaha iyo meelo walba ee dawladdu u baahneed sida wadooyinka iyo wax walba loo baahnaa. Isbedelada siyaasadeed taasoo doorashooyinka iyo waxyaalaha loogu isticmaalayay dhaqaalahani. Haddaba waxaa kamid ah meelaha lagu dhisay warshada burka, warshada caanaha, warshada dharka iyo warshada sokortaba. Intaas ayaa kamid ah deemihii la soo qaatay ee dalkani. Haddaba waxaa lagu dhisay isbedelada meelaha traafikada iyo wasaaradaha quruxda badan iyo madaxtooyada taasoo ka dhignay dalka inuu soo wax dhaqaalaha lahayn markuu Maxamed Siyaad Barre dalka qabsanay si uu dalkan dhaqaale u sameeyo inuu wixii dhaqaale soo galayaan dhiso soo deemo badan u qaato. Waxaa kamid ah deemihii uu qaatay Maxamed Siyaad Barre markii uu dhisay dekada Berbero iyo dekada Boosaaso deemo tiro badan ay ka soo qaatay caalamka iyo midda muwaadinada laga soo aruuriyay cashuurta ayuu mid walba ku biirinay taasoo ka dhigan in lacagtan lagu lahaa ay ahayd $2 milyan taasoo wixii intaas ka sii dambeeyay 30 sano burburka aan ku jirno ay korisay lacag badan oo rahane oo waxa ahayd ay sii korisay. Haddaba dawladda Soomaaliya intaasba waxay u dhistay dhaqaale badan kuwa hadda jooga wax meesoo kordhiyeen wax cusub ay dhiseen waa may taasoo ka dhigay in dawladda hadda joogtay iyo wixii dib Maxamed Siyaad Barre ka imaanay ee dawladaha caalamka iska qaadadeen waxa ahayd deemo badan ayadoo sababtay in $5 milyan lagu yeeshto $5 bilyan lagu yeeshto taasoo ka dhigan inay noqotay dawladii aan waxba haysan oo sabuul ah oo $5 bilyan lagu dhistay in laga joojiyay deemanka caalamka. Maanta dalka Mareykanka wuxuu qaataa deeman aad u tiro badan asagoo qaata bangiga adduunka laakiin adigoo Soomaaliya hadii lagu yeesho $5 bilyan ma qaadi kartid sababtoo dalkaaga ma laha kaaba dhaqaale oo kala duwan. Haddaba dawladda Maxamed Siyaad Barre ee jirtay waxay dalkan u horseeday horumar aad u badan ayadoona dunida saddexaad aysan gaarin maanta qarniga 21 ayadoo lagu jiro ayadoona dawlado badan ay haysan isbitaalo free ah, dawlado waxbarasho free ah iyo hooyo ay degaan askartoodaba taasoo ka dhigay in maanta sanadkani ee wadamada Yurubta iyo wadamada Mareykanka inay haystaan intaasba laakiin dawladaha Afrika aysan waliba qaaysaas soo garin taasoo Maxamed Siyaad Barre oo suurtagal ka dhigay in deemuhu uu qaatay intaasba uu ku sameeyay. Haddaba waa fahamtay $300 sida lagu lahaa iyo inta muwaadin uu ku soo badbaaday iyo dalkan hadda sida uu yahay ayadoo lagu tiriyay dal sabuul ah sida uu dhaqaalihiisa u dhismo. Haddaba qof walba muwaadin waxaa lagu lahaa $300 taasoo ka dhigay Maxamed Siyaad Barre inuu ku dhiso dalkan laamiyada maanta hadday burburaan xataa haddii wax walba lagu dhaftay aanan jebin waxaa dhisay Maxamed Siyaad Barre. Waxaad arkaysaa laamiye hadda la dhisay haddii roob xataa taabtaan baaba'ay taasoo ka dhigay in dawladda Maxamed Siyaad Barre ay wixii soo deysatay u martay wadan ee si dhaba ee dalkeeda iyo dawladeeda iyo shacabkeeda ay ku dhisato. Haddaba qof walba muwaadin ah maanta waxaa laga cafiyay lacag $300 taasoo ka dhigay in laga cafiyay bangiga adduunka iyo dawladihii lagu lahaa. Haddaba saan hadda kaabayaashiina dhaqaale u dhisano waa in anaga isku tashanaa wixii naga dhiman anaga aan dhisana. Haddaba waxaan ka codsanayaa inaad channelkaygan subscribe ka saartid iyo Facebook-gayga follow gareysid aad ayaad u mahadsantahay.